gudoomiyaha xisbiga mucaaradkooda injineer Faysal Cali Waraabe oo ka hadlayay gabagabada munaasabad loo qabtay dhalinyaro la barayay hogaaminta ayaa si adag u dhaliilay labada gole ee wakiilada ee guurtida Somaliland halka golayaasha deegaanka Somaliland tilmaamay in la kala diri doono barnaamijka in dul fadhiya yaa u kordhiyay bal guurtidan isku sharaxaysa is yaa u kordhiyay how can we survive haddaan shaqada eegin marka been ku nool waa reality loo yimaada reality loo yimaada ummadda kale been loo sheega ma san ku soconi mayno in shanta sano ba iska daba laadno doorashadu mar bay dhacdaa wala la xisaabtaa marka toqol campaign waxa saad qalad inuu markay qaanku dhamaado markii baan isku fuulnaa laana waxa weeye check and balance kii baa lumo baarlamaankii baa shaqeynay haduu baarlamaanka uu shaqeynayo oo siyaasadda ku shaqeynayo ee xusbiga anagu ma baanu hadalleen iyaga noo hadal lahaa haduu meeyarkan soo doortay aniga iga amar qaadanayo oo siyaasadda ku soconayo taana ilaalin lahaa madaxtooyadu iska xaadiraya do whatever you want haduu halka galna waa bayt Sufyaan socon mayso Soomaaliland haddana qabyaalada iska tagin haddaanay tuugada iska tagin the we born as thieves qof kasta meesha uu xadaya qof kasta bal waa kan wuxuu noo hayaa xil waa meeyarkii way ka soo bixin shaqadooda qabiil baa lagu daafacayaa shaqadan siro wali kaalay ma naqasheen meeyarka gees no waa qabiilad bayna baabis موسى هذا واحد الله يمكن تشوفيه أدارك واحد أما بقى له بحاجة في فيسبوك ساعة موسى ما بقى عينيه اليوم كتير واحد قشة هذا هو مدحويني وقدومي أنا ولا عاية موتي تركي ما حلو ده ما بهاش نسكتوري موتي بهاش نسكتورة بهاش واحد ويقف حل نوحيا والله حساب ثمنه هذا دوسنا العين دي عقل كدوسي ده هفرز تنبغيها لكن حلو نوحيا والله حسابته من أقل كيسان وشيء. اسمه أحمد اسمه صابتي في هرقيسة.